degga runtii wuxuu ahaa mid waqtigiisa ku soo beegmay mid loo baahan yahay in talo wadareed laga yeesho hadday tahay dawladda hadday tahay bahwadaagta waxbarashada kala shaqeeya wasaaradda waxbarashada oo aanu annagu sidra aanu ka mid nahay waddankeennu waa waddan ku yaala emergency areas ama la dhihi karo waa waddan badanaa u saaxiib ah masaa'ibta iyo musiibooyinka noocaan ee dhaca ama ha ahaado mid gacan bani aadan sabab u tahay ama ha ahaado mid natural ah sida abaaraha dagaalada muxuu ahaa daadadka soo rogmanaya iyo muxuu ahaa isoo qabo cudurrada iyo waxyaabahaas oo dhan oo dhammaantood saamayn cad oo toos ah ku leh waxbarashada duruufahaas jira aawadood waa muhiim in qorshe laga yeesho shir laga yeesho kulan laga yeesho sidii loola tacaamuli lahaa waxbarashaduna ay u socon lahayd annagu sidra waxaanu wasaaradda bahwadaa kula nahay mashruuca waxbarashadu ma istaagto la yidhaahdo ACW oo ah mashruuc runtii slogankiisu ama uu yahay kudhigiisu waxbarashadu ma istaagto arrimaha kan oo kale marka ay taallona waxaa soo baxaya fikradda ah waxbarashadu ma istaagto ma sugi karto emergency-ga inta lagu jiro in waxbarashadii gaab la geliyo sidaa darteed waa muhiim in facility-ga iyo wax walba oo lagu seefgarayn karo wakhtiga iyo socodtaanka waxbarashada in la sameeyo runtii awoodna la geliyo waa wax muhiima oo loo baahan yahay weeye annagu wasaaradda si gaar waxaan ugala shaqeynaa education in emergency waxbarashada xaaladaha degdeg ah oo mashruucan aanu bahwadaagta ku nahay safe iyo care wasaaradda waxbarashaduna ay liidka noo tahay aanu kala shaqayno runtii waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaanin warmurtiyad qurux badan oo mustaqbalka carruurteenna gaar ahaan kuwa wax ku baranaya xaaladaha baahida gaarka ah iyo emergencies-ka dhexdooda inuu u noqdo mid life safina noloshooda badbaadinaya siinaya adeegga ay u baahnaayeen ee waxbarashadooda inay kor u wataaniin oo aysan ka istaagin dhammaan carruurteenna iyo bulshooyinkooda ay ku dhex nool yihiinba in loo diyaariyo waxyaabihii ay kaga gaashaaman lahaayeen masaa'ibta noocaana